Assalaamu calaykum asxaabta meel kasta joogta waan salaamaya waa miskiinkii yaraayo idin leh meesha magacu ku qoran yahay meesha ka horeysa hadday casaan tahay iga daraniyo waxaan idin hayaa qiso yaroo jacayla nin saaxiibkaya oo aad aan isku fiicannahay wallaahi ku dhacday waa qiso xanuun badan wax ku qaadasho leh wallaahi ciyaalnimadu marmar bay ku tagtaa waxa dhacday wiil aan saaxiibo nahay ayaa yaraantii gabadha isku galaas ahaayeen oo waqtigaa ay isku galaas ahaan jireen ayuu jeclaaday iyadoona ogeyn oo u qabta dee walaalkeedu 9 kaba wala kaftami jireen sidii walaalaha oo kale dad isku soo koro waxa dhacday wiilkii uu dee jacaylku sii xoogeystay maalinta ka dambeysay iyadoona gabadhii ayna war ka ahayn walaaltinimo uuna soo qabaan aduu dhowr sano markii ay kasoo wareegtay wiilkii maalin kasta wuxuu go'aansan jiray inuu u sheegto dee jacaylka uu qabo markuu go'aansado ee uu socdo ee uu yidhaahdo caawa la kulan u sheeg qofta arrinka uu ballamiyo ee ku idhaahdo caawa inaan kulanaan doonaya oo wax ku sheego ayaa markay sarkaan ninkaasi kuma galaayo wax kalunbuu isku beddelaa aduu alxaasil sidii kulba go'aan u qaadanayay kulba ayuu maalin canabooday u dhiibay dee runta wixii uu socday wuxuu ku yidhi intaasoo sanaa ku jeclaa jacaylkaagu wuu igu batay maxay daanay kumana sheegin intaa waan kaa qarinayay heer waxaan gaadhay aan mashquul galo adiga dartaa adna madogin inaan kuu sheegtan caawa doonaya markaasi gabadhii yaabtay waayo umay qabinba hebel baa jacaylku u sheegay walaaltinimo wallaahi ma ahayna wax kale inayna ka naawilin balse wuxuu kala kulmay gabadhii waxay ku tidhi maanaad sidaa igu leedahay maanuu walaashahay yaad sidaa igu leedahay markaasi warka cad u dhiibto waxay ku tidhi may kaama aqbalay anigu walaashaabaan ahay walaaltinimada ayaa ka fiican jacaylka wiilkii isagoo calool adeegaya ayuu hayiilo ka noqday kadib dee meeshii waa lasoo qanciyo ku noqon kari maayo wuxuu go'aansaday inuu gabdho kale oo iska doonto dee ileen waa kala qanciyey markaasuu 2 gabdhood ayuu jacayl u sheegtay wuxuu ku yidhi aduu dee waan jeclahay waayo mid buu sheegtay midna isaga ayay u sheegatay tii isaga u sheegatay kama danayn laakiin tii abuu u sheegtay waan ku jeclahay ku yidhi ayay in badan isla socdeen tii kale ee markaa labaad tanda kusoo daadisay maahine ugu horreyntii tii labaad isna waa kan dhinac buu kala wadaa jacaylkii tii kale ee waan ku jeclahay ku yidhina dhinac buu kala wadaa iyadoo sidaas tii dee markaa isagoo yidhi tan dee ku bedelo booskii ee u sheekeynayay ayaa ka dalbatay guur waxay ku tidhi inaan isguursanaan doonaya balse isna wuu ka aqbalay isagoo la dee xanuunkii iskaga baabi'ay qoftiina au jacayl weli u qabo laakiin dee waa ka war cad lasoo siiyey meel ka noqdaa ma jirto tii kale waa kan wuxuu damcay gabadhii markay xaaladdu halkaa marayso gabadhiina waa dareentay waayo maxaad dee sidan igu galaysaa bay tiri markaa wuxuu damcay inuu runta u sheego oo ku idhaahdo gabadh kale oo hore aan u jeclahay ayaan jeclahay inaan guursado
balse markuu gabadhii sidaa ugu sheegay waxa uu kala kulmay macnaha sidaa igu leedahay nolosheeda aad ku ciyaaraysaa oo qalbigeygana dhaawacdo doonaysa waaban isdili haddaad saa igu leedahay. jabbo waa ka dambeeye wiilkii isaga oo eegaya gabadhii oo ay ka run tahay gabadhana inay isdilayso ayuu xal buu habeen kasta geli jiray walaashii beentee ayuu ku maaweelin jiray isagoo sidii tii kale ee saddexaadna ay jeceshahay ayuu wiilkii murugo buuq fikir ayaa la soo diristay waayo dhinacan uma ciirayo dhinacan midna markaa maskax wareer wuxuu damcay inuu tii ugu horreyntii jeclaa inuu guursado balse tii kale ka hortaagan oo dee meel